halkee ayay ku qarsoon tahay hantidii madaxweynihii hore ee Liibiya ee Qadaafi sidee ayayna balaayiintaas dollar uga baxday Liibiya yayna jeebka u gashay hantidaasi baaritaan uu sameeyay telefishin Hollandiisa ayaa helay jawaabaha su'aalahaas oo waliba dhalisay dood weyn baaritaanku waxa uu helay ilo muhiim ah oo la xiriira qadiyadda hantidaas reer Liibiya ee maqan waliba waxa ay sababtay in dad ay u dhintaan baaritaanka la sameeyay baaritaankan waxa ka shaqeeyay laba film soo saare oo u dhashay wadanka Holland oo lagu kala magacaabo Mish Wezel iyo Thomas Bolam xilli hawl shaqay u tageen wadanka Liibiya una kuurgalayeen xaaladda wadankaas ayay heleen xog ah in madaxweynihii waqtigaas ee Qadaafi uu dalkaasi ka saaray balaayiin dollar ma ahan wax qarsoon in Muammar al-Qadaafi uu ahaa mid aan ku kalsoonayn bangiyada caalamiga ah sidaa darteed isla gudaha Liibiya ayuu ku qarsan jiray balaayiin dollar balse markii uu kacdoonkii wadankaasi bilowday sanadkii 2011 waxa uu go'aansaday inuu hantidiisa u saaro banaanka film soo saarayaashani waxa ay heleen cadeymo qarsoodi ah oo muujinaya 179 diyuurad oo ah nooca ganacsiga ee Liibiya oo ay duuleen sanadkii 2011 ayaga oo xambaarsan ama sida sanaadiiq ka samaysan alwaaxyo oo ay ka buuxaan lacag fara badan oo dollar ah waxaana sanaadiiqdaas lagu dajiyay garoomo caalami ah oo ku yaala Koonfur Afrika markii xamuuladaasi ay soo gaareen garoon ku yaal magaalada Johannesburg sida muuqata shaqaale ka tirsan garoonka ayaa duubay waliba dad ay isgaranayaan ayay u direen muuqaalada waxayna sawiradaasi gaareen nin u dhashay wadanka Serbia oo ku noolaa South Africa kaas oo haystay sawiradaasi labada film soo saare ee Holland u dhashay ayay u suura gashay in ninkaas reer Serbia ay la kulmaan ayna ka helaan sawiradaasi balse laba maalin kadib markii kulankaas uu dhacay booliska South Africa waxay heleen meydka ninkaas reer Serbia waxayna baaritaanada hore ay tilmaameen in dilkaas ay ku lug lahaayeen laba nin oo aan la aqoonsan balse la rumaysan yahay in ay u dileen sabab la xiriira marqaati ahaan balse sheekada la yaab kale ayaa ah in booliska Koonfur Afrika shaaciyeen in ay heleen meydka laba nin la rumaysan yahay inay haayeen kuwii dilay ninkii Serbiyaanka ahaa ee hayay sawirada waxaana meeshaas ku lumay ilo muhiim ah oo la xiriira baaritaanka ay wadeen film soo saarayaasha reer Holland baaritaanku waxa uu tilmaamayaa in qiimaha lacageed ee uu Qadaafi u xawishay Koonfur Afrika ay gaaraysay 12 bilyan oo dollar waliba waxa ay ku eedeynayaan madaxweynihii Koonfur Afrika ee waqtigaas Master Zuma in uu qariyay lacagahaas isaga oo kaashanaya xisbigiisii Zuma waxa uu saaxiib dhow la ahaa Qadaafi waxa uu ugu yeeri jiray boqorada Afrika halka Qadaafi uu taageero weyn u ahaa xisbigaasi hogaamiyihii hore madaxweynihii dhintay Nelson Mandela film soo saarayaashan reer Holland ee baaritaankaasi waday waxa ay sheegeen in hogaamiyaasha xisbiga African National Congress in ay diideen inay ka hor muuqdaan kaamirada waliba iyaga oo difiraya dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay xogta baaritaanka ayaa ku soo aroortay in ay tilmaamaan in raadadka sirta baaritaankan ay adag tahay maadaama baarayaal caalami ah ay haatan gacanta la galeen arrinkaasi xukuumadda Liibiya ee haatan jirta waxa ay u ballan qaaday qofkii soo sheega xog keeni karta halka hantidaas ay ku dambeysay inay siinayaan abaalmarin lacageed oo aad u sarreysa waxaana xogaha kale ay xusayaan in shakhsiyaad Liibiyaan iyo nin u dhashay Tunisia oo hubka ka ganacsada lana yiraahdo Ayrid Jawaad ay haatan bilaabeen si madax bannaan inay u raadsadaan lacagtaas adigu ma aaminsan tahay in Liibiya ay awoodo in hantidaas maqan ay soo cushato waqtigan